hadda taagan de wax qarsan maayo inta dhibaatooyin badan marka ka jirta dhibaato aad u ballaaran oo ay ciidamada amisom ay shacabkii rayidka ahaa iyagoo aan kala soocin ay u geysanayaan ka jirta dhibaatadaasi hadda waa dhibaato soomaalidu inay qof ka soo daraan lahayd oo ka murfoodo waaye marka waxa meesha kala soo yeerayaan xadgudubyo baashan baa meeshii ka dhacaya oo ay geysanayaan ciidamadan amisom mushkilad weyn baa meesha ka taagan xaqiiqatan arrintan maxaad isleedihiin marka hore waxaa soogeyn ciidamo amisom oo nabadgelyadin halka u jooga ay dad shacab laayaan maxaad isleedihiin way sawirta waxaan oran karnaa arrintan waxyaabaha ugu weyn oo sababi kara waxa weeye ciidanka amisom waxaa iska leh mas-uuliyadeeda iyo dalka inay yimaadaan waxaa hawsheedaas sharci ahaan ay ugu sharciyeysan tahay oo maandeedkeeda xadidaya dowladda federaalka kumeelgaarka waxaan leeyahay dowladda federaalka soomaaliyeed dowladda federaalkana hadde iyadiina war uma hayso meesha maamulkii degmadana ma jiro meeshan waad ogtahay oo muddo badanba dagaalo sokeeya ka jira wixii ka dambeeyana waa la ihmaaliyey carradaas oo dhan haashta gobolka si guud ahaan amba degmada markay guud ahaan gobolka shabeellada hoose waxaad moodaa inaysan soomaaliya ahaynba waxaa dagaalada ka jiray muddooyin dhowr sanaa 2 sano ilaa kaana marka idaarad ma jirto maamul ma jiro shacabkii cid u hadlaysa male waxa dhibaato ku dhacaya dowladii dhexe ilaahay ka qabsatay mar maaha 2 maaha 3 maaha intay dhacay marka waxa weye mas-uuliyadda waxaa iskale oo inay ka warqabaan la rabay dowladda dhexe ayay ahayd oo markaan ciidamada haddii ay xadgudub shacabkeeda ku samaynayaan inay yidhaahdaan waxaad samaynaysaan waa xadgudub wixii ugu talagalay ama meelkiisii ahaa wax ka badan baad samaynaysaan dad rayida oo meesha wax ku yeelayseen hantidooda guryahoodii waxaad wixii dhihi lahaa meesha waa ka maqan yihiin marka dowladda dhexe wakiil uma joogo ciidamadii dowladda ma joogaan saldhig booliis ma shaqeeyo militari ma joogo waxaan ku yidhahdaa nabadgelyad ma joogto maamulkii dhowaan ee dowladdan hadda koonfur galbeed ku dhawaaqday ee soo magacaawdana weli ma howlgelin oo carradimada uu teginaan umalaynaya meesha waa maranaya marka shacabkii waxaa laysaga dhexbaxa ciidamo oo afrika union ka socda oo dadku dhaqankooda oo dadka inay kala xidhiidaan aanay jirin meel alla meesha xabad uga soo dhacdana taangi la ficiisay ku rinayaan arrintaas wakiila ka dhalanaysa dhibaata aad u xoog badana ka dhalanaysa dad rayid ah oo guryahooda joogo oo qarkooda habeenno iyagoo hurdayo loogu soo dhacayo dhalinyaro darolineer ku ciyaaraysa lagu dilaayo odayta caddaan oo masaajid ku jira iyo maaragtay ilmo maaragtay iska been ku ciyaaraya in laiska baas la iska mariyo hawaayo waxa ka imaan karayo wax u waayo wanaagsan maanta wax ka soo yeelaya dada dhaawacmay dada cisho ku dhintay waxaas oo howlo ah ee soo noqonayo oo sanadkii hore ilaa hadda socda ma la oran karo moogtahay dee wax yaroo fudud oo hadda si kale ay u dhaceen maaha weli waad xisanaysaa dabada amisom ooda xataa garawsho laga heli maayo waxay ku leeyihin amisom waxaan badanaynaa niman kale oo cadow oo nala dirirayo dadka meesha joogo oo qoysaska hadda xalay ugu dambeeyay la helayo haddii soomaaliya dee dadku dadkana magaaladooda degan yihiin ninka la yidhaahdo odayga hadda meesha lagu dayaya afartiisa caruur macalin iidi la yidhaahdo iyo wiilkiisa cumar iidi iyo xuseen iidi iyo sid cali iidi iyo yusuf iidi haday ay shabaab raad ku yeeshaan oo maaligu shabaab raad ku yeeshaan ayadda waxaa dadka bulshada waa la saari karaa laakiin dadkii hadda oo la yaqaano oo deegaankiisa degan oo reerku halfani la laayo waxa waaye ayadan dara waaye oo cid u hadlaysa waaye wax la qaadan karaa ma la ogolaan karana maaha intaasi aad bay uga badan tahay waxa waaye dowladda iyo deegaanka degmadaas marka la yidhahdo iyo dadka wakiilada u ah baarlamaanka iyo xukuumadda ugu jirana bilxaqiiqatan aad bay u imaaniyeen oo hadda waxay ahayd dadka wakiilada shacabka in ummadda u hadlaan oo difaacanay ahayd markii khaladku dhaco ayagana dadkooda la hadlaan hadday khalad sameynayaan laakiin in shacabka iyo laysaga dhexbaxo ciidamo taangiye iyo madaasiyo ku horeysan waa ayaan daro aad weyn oo lagu haysto runtii si hadda arrintan marka wax looga qabto dowladda soomaaliya maxaa loo gudboon maxay tahay inay qabato dowladda soomaaliyeed waxaan ugu baahannahay haddeerna loo sheegaya oo ka codsanaynaa inay hawshaas soo baarto xaqiiqada meesha jirta soo ogaato kadib markay soo ogaatana tallaabo laga qaado dadka tallaabo waxa kala sameeyey
مسؤولين وصوت طارئ التسوق طبعا أنا يقعوا أنا أمشون من بينهم العاد كل مستعمر أو مخير الشرعيين وبلاطة مرات سوالية وأنا يجب يشربوا كارا لا نقول يتوحد علي قرروا يقولوا بتقصعوا وعبدوا هذا هي ماشتي أيضا يعني أنا قلت كنا لأن الصوت حضرك ماشتي إنه يجري بين وريتان وياش بيان في كوري وحكي عليه تعويض عرض في كوري ويجري وأجري على أبوه معلم وين في الإنسان بيقول لي لا يشوف كنا تبغى تقول اللي يكانوا معروف وري مكان